kulanti wacan halkan waa janalka xulka wararka. waxaan idiin soo gudbinaynaa taariikh nololeedkii allaha u naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir ahna duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka Gadar. allahu u naxariistay marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow waxa uu ku dhashay degmada Hodan ee gobolka banaadir 16 Agoost 1965. waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu kaga baxay Banaadir Secondary School oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir, isagoo sidoo kalena ka qalin jabiyay jaamacadda Geheer ee Muqdisho, gaar ahaan kulliyadda Civil Engineering dhammaadkii 1980. waxa uu jaamacadda dhameeyay 1986. shaqooyinkii uu qabtay waxa uu ahaa kuwo kala duwan. 2000 ilaa 2003 shaqooyinkii uu soo qabtay waxaa ka mid ahayd dowladda hoose ee London. waxa uu noqday shir guddoonka kooxda Somali Concern Group intii u dhaxaysay May 2004 ilaa Oktoobar 2008. xilkaas wuxuu hayay muddo 4 sano ah. waxa uu noqday madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladdii ku meelgaarka ahayd intii u dhaxaysay Oktoobar 2008 ilaa Febraayo 2009. waxa uu noqday agaasimiyaha maamuuska xafiiska madaxweynaha intii u dhaxaysay Febraayo 2009 ilaa Agoost 2009. Agoost 2009 waxaa loo magacaabay wasiirka lacagta dowladdii ku meelgaarka ahayd isaga oo xilkaasna hayay ilaa Julaay 2010. Julaay 2010 waxaa loo magacaabay wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowladdii ku meelgaarka ahayd isagoo xilkaasna hayay ilaa Diseembar 2010. 3 Diseembar 2010 waxaa loo magacaabay la taliye sare oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo afhayeenkii dowladdii ku meelgaarka ahayd isagoo xilkaasna hayay ilaa 19 Juun 2012. 20 Juun 2012 waxa uu noqday agaasimihii Radio Barkulan isagoo xilkaas hayay 25 Abriil 2013. 26 Abriil 2013 waxaa loo magacaabay la taliye sare iyo afhayeenka xafiiska madaxweynaha Soomaaliya isagoo shaqadaas hayay ilaa 23 Abriil 2014. intii u dhaxaysay 24 Abriil 2014 ilaa 21 Maaj 2017 waxa uu ahaa la taliye sare oo dowladda Soomaaliya kala taliya dhinaca warfaafinta iyo isgaarsiinta. 21 Maaj 2017 waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya. 21 January 2018 waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxa uu ifka kaga tegay 7 caruur ah, 2 wiil iyo 5 gabdhood. waxa uu ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar taariikhdu markay ahayd 1 Agoost 2019 kadib dhaawac ka soo gaaray weerar ismidaamin ah oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.